Assalaamu calaykum. Astaamaha guulaystaha. Guushu waa in aad xaqiijisaa ama aad gaartaa hadaf aad rajaynaysay in badan oo waqtigaaga ah. Dhammaanteena waxa aan leenahay hadafyo badan oo aan rajaynayno in aan gaarno mar uun. Waxa aan u baahannahay ayaa ah in aan gaarno guulo waaweyn, laakiin guushu waxay u baahan tahay in aanu leenahay jiho cad oo diiradda noo saaran, taasoo naga caawin karta in aan xaqiijino guulo waaweyn. Waxaan halkan kugula wadaagayaa 5 ka mid ah astaamaha ay leeyihiin dadka guulaystayaasha ah. Haddii aanu dabaqno 5tan qodob, waxay naga caawin kartaa in aan diiradda saarno ujeedooyinkeena iyo sidoo kale in aanu gaarno guulo wax ku ool ah. Qodobka koowaad, u fakar qaab wanaagsan. Qaabka aan u fakarayno iyo qaabka aan u dhaqmayno waa muhiim, waxa ayna qayb weyn ka qaadanaysaa in aan ku guulaysano waxa aan qabanayno iyo in kaleeto. Tusaale ahaan, ardayda qaar ayaa u arka waxbarashadu in ay tahay wax dhib badan. Fikirkaas awgeed ayaa sababtay in ay waxbarashadu ay u arkaan inay tahay wax dhib badan oo ay macquul tahay in aanan la baran karin. Laakiin haddii ay u fakari lahaayeen qaabkaas qaab ka duwan, tusaale ahaan in ay u arkaan waxbarashadu in ay tahay wax iska ciyaar ah oo iska fudud, markaas kadib waxa ay la noqon lahayd waxbarashadu wax fudud oo ay ku raaxaystaan marka ay daraasaynayaan. Sidaa darteed, mar walba waxaan u baahannahay inaannu wax ka fiirino dhanka wanaagsan. U arag dhammaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka ku soo wajahaya in ay kuu yihiin fursaddii aad ku guulaysan lahayd. Markaas kadib, albaabka aad guushaada ka geli lahayd hortaada ayuu imaan. Qodobka labaad, wax walba waqtigooda ku qabo. Marka aan rabno in aan wax qabano, waa in aanan caajisin oo aanan dib u dhigin waxa aan qabanayno oo waqtigooda aan ku qabanno. Maxaa yeelay dib u dhigiddu waa qaladka ugu weyn oo aan galno marka aan rabno in aan gaarno guul. Wax walba waqtigooda ku qabo. Badanaa bilowga hawl way adag tahay, laakiin waxaa loo baahan yahay in aan meel uun aan ka bilowno. Markii ay noo bilaabantana hawsha, waa in aanu joojinin ilaa aanu ka gaarayno guusha. Oraah ayaa waxa ay leedahay safar 1000 mayl ah waxa uu ka soo bilowday hal tilaabo oo horey loo qaaday. Marka ha sugin wax kale ee hadda bilow inaad horey u qaadid talaabo ka mid ah talaabooyinkaada guusha. Qodobka saddexaad, weligaa ha quusanin. Ma jiraan wax si fudud ku yimaada. Waxa aan u baahannahay in aan si adag u shaqeyno si aan u gaarno wax walba oo u baahannahay nolosha. Waxaa jiri kara caqabado fara badan iyo dhibaatooyin, marka si fudud ha isku dhiibin marka aad wajahayso caqabadahaas. Waana muhiim in aad caqabadahaas kugu horgudboon inaad u aragto qaab wanaagsan. Haddii ay dhacdo in aad ka adkaan kari weyso caqabadahaas, xoogaha istaag, nasiinana qaado, kadib dib u kicin nafsad ahaantaada, hawshana bilow. Waad la yaabi doontaa shaqada aad qabatid marka aad nasitid kadib. Haddii aad guuldaraysato 1 mar ama 2 mar, kama dhigana in aad weligaada aad guuldaraysanaysid, oo waxaa loo baahan yahay in aad iskudayga sii wado inta aad ka gaarayso guushaada. Sidoo kalena qaladaadkaaga wax ka baro. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaanan weligaada aadan isdhiibin adigoonan iskuday sameynin. Qodobka afaraad, waa inaad isweydiisaa su'aashan: haddii dadka kale ay awoodaan, anigu ma awoodaa? Qof walba waxa uu ka wada siman yahay ayaa ah in aanu bini'aadam wada nahay dhammaanteena. Taas waxa ay ku siinaysaa in aan wada haysano fursado isku wada mid ah aanu ku wada guulaysan karno. Waxa kaa dhigaya in aad dadka kale ka duwan tahay ayaa ah jawaabta su'aashan aad u heshid. Haddii dadka kale ay awoodaan, anigu maxaanan u awoodin? Furaha guushu waa kalsoonidaada. Isku kalsoonow, waxaadna aamintaa wax walba inay macquul yihiin oo aadna qaban kartid. Qodobka 5aad, isbeddel marka horeeto inta aadan wax kala beddelin. Haddii ay dhibaatooyinku soo wajahaan, ha u cabanin dadka kale, hana isku dayin in aad cudurdaar samaysato. Ficiladaada oo dhan adiga ayaa ka mas'uul ah, marka qof kale ha u saarin qaladaadkaaga. Aqbal qaladaadkaaga, dibna u sax. Intaad fadhiisato ha isdhihin, hana u malaynin inay jirto qof kale oo qaladaadkaaga kuu saxayo.
tusaale ahaan haddii aad imtixaan ku dhacdo ha u malaynin in macalinkaaga uu ku neceb yahay oo uusan rabin in aad baasto, laakiin isku day inaad samayso muraajaco kugu filan iyo inaad nafsad ahaantaada aad sii tijaabiso inta aadan gelin imtixaanka ka hor, iyo inaad weydiiso macalinkaaga su'aalaha aad qabto imtixaanka ka hor. haddii aad dadaalkaas iyo dadaalo ka badanba aad samayso waxaad arki doontaa in ay siyaadaan dhibcahaaga imtixaanka. marka haddii aad adiga isbeddesho oo aad wax wanaagsan samaysid, waxa kale ee kugu hareeraysanna way isbeddeli doonaan. ugu dambayntii Allah subxaanahu watacaala aan tala saarano. haddii Allah subxaanahu watacaala aan tala saarano waa uu nagu filan yahay, sidoo kale umuuraheenna oo dhan way noo fududaanayaan, waxa uuna naga siinayaa meel aanan filaynin. موضوعنا maanta intaan ayuu ku eg yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.